بسم الله الحمد لله لما waxaan salaamayaa marti sharafka iskugu timid koobkan aynu maanta ku xusayno Shabeel Cup Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali koobkaas oo ah mid ay qaban qaabisay shirkadda Telesom oo ay u qaban qaabisay dhalinyarta ka shaqeysa shirkadda Telesom Group oo kala ah 8 waaxood ama 8 farac oo shirkadda Telesom Group ah maamulka Telesom Group oo gartay inay dhalinyarta Telesom ka shaqeysa oo gaaraysa 120 ciyaartoy inta cuslaateen ka mid ahay maaha inta ciyaari karaysa si fiican u ciyaaraysa Telesom Group 120 ciyaartoy waxaan ka soo qaadanay 120 ka 8 kooxood 8 kooxood oo sanad walba aan u qabanno koob xiriira waana sanadkii lixaad ee si toos ah aan loo kala goyn ee sanad walba la qabto bisha ay maanta ku jirno inagoo ku xusayna ninkii maalinta qaban qaabiyay ee bilaabay ee isku dabariday kuna sharfayna ciyaartoyga weyn ee reer Hargeysa Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa qaban qaabiyaasha koobkan oo inta isku dabarida Salebaan Xasan iyo Yuusuf Boobe labada nin oo ah garbaha iyo nimanka mar walba ka warhaya ee koobkan iyagu gacanta ku haya ee ka mas'uulka ee sida fiican una soo qaban qaabiya una dhameeya una ganaanada una dhaguga dhiga oo mar walba aanu ka dareeno farxad iyo jiilka cusub ee dhalinyarta reer Telesom oo guubaabe helaya waxaynu halkan u joognaa inaynu iba furno inaynu baarigno koobka Telesom maxay ahayd Telesom Shabeel Cup 2020 inaynu iba furno 6 sano baynu si joogta baynu u wadnay waxaana loogu talagalay in dadka dhalinyarada ah shirkadda groupka Telesom Group ka tirsan in la dhiirigeliyo inay isbartaan in ay isdhexgalaan in firfircoonidoodii jireed maaragtay ay sii socoto oo dadku inta badan markay shaqada galaan way caajisaan marka inaana caajisina social life-kiina inay ku sii jiraan oo maaragtay energy la sii siiyo oo la sii dhiirigeliyo oo la sii dhexgeliyo oo ay sii bartaano waxaan rabaa inaan u mahadnaqo teamka waqtiga dheer soo waday hawshan Salebaan Xasan iyo maxay ahayd Yuusuf Boobe ay ugu horeeyaan teamkana runtii waa u mahadnaqaynaa dhalinyarada ciyaaraysana waxaan runtii ku dhiirigelinaynaa in iyagoo ciyaaraya oo maaragtay tartamaya oo xafiiltamaya oo guushii iyo koobkii u kala dheeraynaya haddana in ay ilaaliyaan sumcaddii iyo baraankii iyo maaragtay akhlaaqdii iyo niyadsamidii maxay ahayd Telesom Group lagu yaqaanay in ayna runtii ay dhiirigeliyaan dhammaantoodna guul baan u rajaynaynaa gaar ahaan Soomaalidu waxay tiraahdaa geeljiruukeela waa wada jirtaa waana kala jirtaa teamka anigu aan afkooda ku hadlayaan halkan u joogay Dar es Salaam baana oo ah teamka koobabka runtii ugu badan qaaday teamka runtii ugu fiican ee ugu adagna ku jira waxaan rajaynayaa sanadka inay laba israaca ee runtii ay keenaan oo koobkii akhlaaqdana ay ku soo kuuleystaan iyo maaragtay ciyaar wanaagga iyo koobnimada iyo sariigashada iyo maaragtay wixii lagu yaqaan Telesom Groupna ay ku soo kuuleystaan koobkii kale kubadana ay ku soo kuuleystaan sidoo kale waxay shirkaddu ugu tala gashay ama ujeedada ay ka leedahay ay tahay inay isdhexgalaan shaqaalaheedu waxaa ciyaaraya 8 group oo ka mid ah Telesom Group oo 8 shaqaale ah ka kooban yihiin ama 8 ciyaartooy marka kulli Soomaalidu waxay tiraahdaa aqliga fiyoobi jirka fiyoobu ku jira sportsku waa u muhiim dhalinyarada ujeedada ay shirkaddu ka leedahayna waa isdhexgalka shaqaalaha iyo waliba social life-kooda ama socializationka iyo waliba in ay exercise helaan shaqaaluhu sidoo kale waxaan ka socdaa shirkadda Telesom Electric Company oo teamkayga ay ciyaarayaan coachna aanu ahay sanadkii horena finalka yimikii ka horeeyayna iyagu qaadeen sanadkana guul baan u rajaynayaa dhammaan ciyaartoyda u ciyaaraysa gruubyada Telesom oo dhan gaar ahaan Telesom Electric Company groupkayga ayaan ugu rajaynayaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa maamulka shirkadda gartay inuu dhiirigeliyo shaqaalihiisa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa inamada soo qaban qaabiyay ama gudida qaban qaabada Yuusuf iyo Salebaan ka mid yihiin dhammaanteen guul baan inoo rajaynayaa maanta waxa ii sharaf ah aniga oo garoonkan
ay Telesom ku qabatay kubadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan agtiisa anna ku ciyaaro ka soo qayb galo waxaan leeyahay Telesom waxa weeyaan shirkadda meel walba ka taagan ee Somaliland mobiladeena iyo guryaheena meel walba ku jirta waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan idin sii rajaynayaa inaa qabataan si la idinku dayado oo noqotaan shirkaddii ugu horeysay ee qabata ciyaaraha gobolada Somaliland oo maalgelisa Telesom baan intaan u dirayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin ciyaartooyga xusaysaan ee weynaa ee laacibka waliba khatarta ahaa ee lugihiisa ku ay garoonkan joogo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marlabaadka waxaa maadnaqaya shirkadda Telesom oo iyadoo aan la'aanteed hawshan suurto gashan gudaha gaar ahaan maamulka gudaha shirkadda mar saddexaadka waxaa maadnaqayaa inamadu soo qabanqaabiyo koobka Yuusuf iyo Saleebaan waxaan leeyahay dhammaantoodba ilaahay kharasiyo kulli anagu waxaan ka soconaa shirkadda Kaabsan baan nahay maamuliyeen coachka shirkadda Kaabsan baan nahay anagu ku laafka shirkadda Kaabsan kulli koobkan horta waxa la qabtay si la sheegay waa marxaadkii la qabtay marka micnaheedu wax weeyaan 5 jeer hore koobka la soo qabtay anagu Kaabsan waxaan ka soo qayb galnay 4 jeer 3 jeer baan final gaarnay midna aad waan harnay laba jeer waxayday waan qaad laba jeer waan naga qaaday midna waan qaadnay marka insha Allah sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan meel fiican gaadho kulli koobkan muhiimadda ama faa'iido ku jirta wax weeyaan waa isla shaqaalaha iyo maxayday sida shaqaaluhu isku bartaan waxa kale ku jirta caafimaad baa ku jira waayo jir maskaxda caafimaad qabta waxa ku jirta jirka caafimaad qabay ku jirta marka insha Allah waxaan leeyahay dhamaantii baad waan badiyaa bahdeena khayr badan rajaynaya insha Allah halkaasoo dhamaan waxaan ma naqay timo ka soo qaybgalay koobka waan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo sanadkii 6aad ee xidhiidha ee la qabanayo tartankan Telesom Shabelle Cup runtii waan ku dhiirigelinayaa in tartanada noocan ay sii wado shirkadda Telesom waan ogaa waqtigii ugu horeeyay saaxiibka Cabdirasaaq Shabelle ayaa runtii ahaa dadkii aasaasay isagana runtii loogu magac daray saaxiibkay aad baan u salaamayaa caafimaad taama oo dhammaystiran ayaan ilaahay u weydiinayaa waxaan rajaynayaa shirkadda Telesomna in insha Allah tacaala ay tartanada noocan sii wadi doonto waan arkayaa in dhalinyaro badan ay runtii ciyaarayso in dhalinyarada la dhiirigeliyo maadaama ay yihiin tirada ugu badan dadweynaha Somaliland waa runtii wanaagsan ilaahay waxaan ka barayaa in shirkadda Telesom oo adeegyo wanaagsan dadka u haysa in maalka ilaahay u barakeeyo saaxiibka Cabdirasaaqna waxaan u rajaynayaa caafimaad taama waxaan rajaynayaa sanado badan inagoo caafimaad qabna barwaaqo ku jirna khayr iyo nimca ilaahayna gaarsiiyo abaaraha ilaahay naga soo jabiyo sixir bararka ilaahay naga qaado Telesomna aad baan u salaamayaa shaqaalaheeda aad baad mahadsantiin